إذن كان سياد عبد الله وقفنا قبل كوجار كهرباء ما خاطين وأما هالسنتين سيادة قفنا الله دورته يبعتنا فراها بدن ووجار الله مسوق ما سوق يقولون كإمعنا الآن وادمانا يعني سياد وأنا سو آخر السنة وأنا مسوق ما سوق وأنا وسو شيئين وأنا انترف قويس عن لهن وأنا الشقة أخانو وأمريكا لو تنسى نكون مغناي سياد وحكومة شي وطن كان أبيس وهو هانجري أسكرت أبيد اللي يراها والله كان نكسته عبد الله غيران اللي يراها ويل مرتين معها مش أنا أقول له شيء أذن كادر أذن كازين شقينا ما خادني ويل أمريكيس والأورجي لكن أبتكيس لو ما أورجي ما دام سياد ولا شيء عيد شيء ما أنت أسقفر أو تاي وعن نجم ذي هين إلى أن كوري هين الوهيل هلا كانوا واقعني أنا كانوا من لقاتين horta waa mid ugu weyn oo maanta yani nin reer lag boqol oo madaxweyne u taagan oo imaado oo wiilkiina horta waa kan waad arkayseen reer lag boqol oo aan u dhamaanay intaan ku jajabnay waan waxaan jirin hadda wiil lag boqol u imaadaaba kan oo American ka soo akhristay dhalinyarada gacantiina tusata fadal waa mahadsantiin reer lag boqol anigoo kismaajo ninkan runtii iga gadmay anigoo 18 ruux oo maalin hotel ku shahaynayno ayaa codkiisa daawana soo golan soo la fadhiyo markaan saan war reewa jeero ninkan aan u baahan anigoo 18 codkiisa meeshan ku saxiin inaan siyaad kuuraha siino hal cod si reer lag boqolow ogaadeenka aniga hadda u hadlay laakiin waxaan la hadli rabaa dagoodiga ajuuraan runtii sidaan ka warqabnay wajeer west dhinacan dagoodiga waan yara xamanaa chief adag ay qabaan dhahnaa chiefkiina chief adagaan ku tilmaamnaa markaan waraysto waxay lii sheegay ninkan siyaad cidda chiefkan uu ka dhashay inuu ka soo jeedo marka waxaan dhahay nin reer lag boqol oo joogo oo dagoodi oo saa u adag oo ciddan midmaal ka dhashay oo chiefka waxaan dhahay chief lag boqol ka imaado midmaal aad adeega qabaaye midmaal Mareykan ka imaaday inuu wajeer dhan matalaayo reer lag boqolow waxaan la hadlayaa dagoodiga iyo ajuuraan ogaadeen aniga waa hadlahayaa walaa siyaad uu naga gadmee aan kuuraha siina wajeer aan geesana waad mahadsantihiin siyaatosha saaki reer lag boqol waxaan filayaa siyaad soo gala inaad wax Allah waxay u baahan tahay heli ogaadeen dagoodi ajuuraan waxaa kaloo jirta qafaan wadaa oo qafaana keenale oo darabeen sheega nimiyow ilaahay laga cabsada qofka hadaas wadin maxaa been loo sheegaa runta hal sheega been hal iska dhaafa siyaad isku soo gali lahaay aan ku tiragalna ilaahay daasira inta doorasho ka dhimana nin walba kabtid u mari kara wuxuu u keeni kara ha u keenay insha Allah ilaahay ka bari ilaahay noo soo galiyo السلام عليكم ريل lag boqol السلام عليكم lag boqol mpo wanasema leo ni leo asemaye kesho ni mongo si walisema siada tia yuko sasa leo niko hapa si ndio hapo marka horta maanta waxaan rabaa hadalka inaan xoogaa dheereeyo sabra Soomaa because nin walbaba candidategiisa iyo hoggaankiisa meel bay ka bilaabataa sida ninkan walaalkay abkay ogaadeen u sheegay ilmeega raabtigooda way ma sha Allah ninkan wuxuu dhahay asagoo Kismaayo joogo u dhageystay horta President Uhuru Kenyatta gurigiisa waa Gatundu Soomaa Raila waa Bondo Soomaa haddaan governor noqdo hapa ndio kwangu si ndio lag boqol ndio my base si ndio waxaa la rabaa reer lag boqol ciddeed u dhalateenba horta inaad dhahdiin annaga iridana laga soo galo waa siyaad iridana laga baxona waa siyaad waxaad ogaanaysiin haddaan governor noqdo magaalada dhismi doonto wajeer oo ugu dhismad badan waxay noqon lag boqol gaabanihi guri baan ka dhisi weyn haddaan insii sheegi guri weyn dadka wajeer kulama shiraay
sabti iyo axadda intaan kula shiri intaan imaani marka gavana oo markaan martiqaado gavanayaasha Marsabit iyo Isiolo intaan ku martiqaaday inta magaaladan markaas idaa iska dhismiba maqaayado hoteelo 20 wafdi seexanayo dadkii Jubbaland ka yimaada haddaan rabin aan la shiro intaan kula shiri maskiya waxaad ogaatiin horta waxaan rabaa maanta inay baratiin dad badan idin dhahay wiil siyaad cabdullaahi la dhaha gavana u taagan oo idinka aad dhasheen irxinkiisa lagbaqon ugu badan yahay 20 sano iyo googo Mareykan wax ka soo barto ku maqnaa waxaan rabaa horta inaad maqashiin maanta hoggaanka Wajeer nin aniga iiga mudan ma jiro waxayna ku dhacday waxaan leeyahay cilmigeedii khibradeedii odaynimadeedii karaamadeedii ayaan leeyahay qofkii taas aan ogeyn nin walba oo Soomaali oo meeshan joogo irxin buu qurbaha ku leeyahay dibadda waraysta Soomaalida dibadda ku maqan siyaad yaa way dhaha siyaad waa nin Kenyan ah oo Soomaaliya oo lagu soo hirto dadka qurbaha degan hatta midka tahriibo la xir aniga xabiska siideeni midka gursanayaan u guurinayni midka odaynimo ah oo noqonayni midka helo u baahan sijuunimo iyadoo qabiil la kala saaran ogaadeen iyo hatta isaaq iyo dhulbaanta la kala saaran nin alla ninkii Kenya ka yimaade ayaan u hiilinaya marka qurbaha deganaa marka ninkii yaraysto aniga 52 sano iga hartay way waxba wajigayga fiirinina yaalidin dhihin siyaad waa wiil leeyahay hal reebo ninka ragga mar hadduu 40 dhaafo wax u haramiya jiro qur'aankii ilaahay hadalkiisii ahaa ayaa rasuulki sallallahu alayhi wasallam asagoo 40 oo ilaahay xikmadii u arkay inuu ku soo dejiyo asagoo 60 jir kuma soo dejin asagoo 40 jir ku soo dejiyo ninka ragga 40 ku baaluqa 40 kuna maskaxdiisa iyo xoogiisa ku kaamila waxba yadan odan baa liin keenaya lindeen anigoo wax xun ka sheegayno nin walaalkay oo gavana uu yahay dawladii daa lagu keenay ma dhismin Soomaha haddii la yiraahdo qofka uu ka weyn yahay waxa la isaga dhaafo saas rag looguma taliyo talana kuma goodo qof hadda ka hor la doortay mar labaad ugu darana tala kuma goodo ninka haddii hal mar wax la siiyo midkan wax la siin waa in wax la siiyo ninkan la tijaabin waa in la tijaabiyo ma isfahamne ninkii hoggaankiisii la arkay horta haddaan dhahno nin baa fiicnaayaha lagu la laabto madaxweyne dalka ma soo bixi lahayn haddii Obama la dhihi lahaa adigu laguma dooranayo Clinton baa ka fiicnaa Obama ma soo bixi lahaa Clinton Mareykan madaxweyne fiican buu ahaa Obama baa ka dabiyay marka nin baa hadda ka hor fiicnaa nin kale looma reebo inuu ka fiicnaada laga yaaba Soomaha inaan ka fiicnaado kuwii hore 1000 jeer baa laga yaaba marka reer Lagbaqolow gavana ayaa in soo soxdo hadduu ilaahay yiraaho laakiin dadaalkiina muujiya tan kooba dardaaran waxay iga tahay mar dambe nin aad yar iyo nin aad badan horta mar dambe yaalin ka maqlin arintaas meel ku xira khaasatan dadka beesha dagoodiyaan ka bilaabay hadalkan nin walba dagoodii erid buu ka soo galaa waa abtirka waa loo wada siman yahay nin qofka kala dagoodinimo ka xigay ma jirto kuraha dagoodii 120 kun hadduu ku dhow yahay ninka midma lagama xigo kuraha Kayfa iyo kuraha Jibraayil iyo kuraha Masar iyo kuraha Fardaano ha isdehina annagaba waxaan dooranay walaalahay cid raabtigay waa mantaan waa reero Maxamuud wayna dooranaa wayna ku maadsanyiin aad iyo aad bay ugu maadsanyiin wayna ii soo hiiliyeen waxaan aaminsanahay 90% ay dooranayaan waxaana keenay cadaaladnimo wiilasha lama kala jeclo laakiin midna waxba la siiyo midna waxba lama siin abkay mid maal waligood wax ma soo doonan hadda wax soo doonan nin diyaar baa cidi ka soo dhaxbaxay in loo hiiliyo Soomaha shaqooyinka way badan yihiin wiilasha nala dhasho kala taagan wasiirnimo aanu raadino tan aniga hal igu dhaafo ninka kale wasiir laga dhigo Soomaha waxba uma diidan anaga ragga walaalayn laakiin waxaan rabnaa reemuduga waxay dhahan ku qabso ku qadibayside dawladda sare Kenya waxa looga raadiyo wasiir iyo governor isku qaadano sheekada ay ka hoosin Soomaha sheekada ay ka hoosin midda kale rabina in sheego waxa weeye Wajeer way baabacsan tahay Wajeer waa la xasuuqay suxun baa loo galay waa la bahdilay ragga iga horeeyay fursadii la siiyay sidii laga rabay ogamay soo bixin 10 sano ayaa 10 bilyan la siiyay sanadkii
10 years 10 sano si fiican dhageysta reer laga boqol waxa inay ka soo gaaraan baa ahayd reer laga boqol oo wixii la keenay 10 bilyan baa la keenay maxay ka soo gaaray waxaa la rabay 10 bilyan oo raggan xulufadooda iyo asxaabtooda ay Karen iyo Lavington la fariisteen iyo Nairobi ee xaasaska saddexda ku fariisteen in meeshan lagu dhisaa la rabay ma maqlaysaan maanta waxaan joogay 5 tabaq biyalaan baa looga cabanayaa waxaan tagay Griftu sanadka la soo dhaafay biyalaan baa looga cabanayaa habaas weyne biyalaan baa meel walba la joogo abaarti dadka ku baabaay sanad walba ma abaar baan ka hadlaynaa meel 10 bilyan la siiyey inay abaar ka cabato miya markii hore dawladda Kenya ayaan eedi jirnay waxaan dhihi jirnay dawladda Kenya ayaa gacan xun ugu haysa mooy baa saarna yeelay hadda xataa qiil maba qabnaba 10 bilyan rag Soomaaliya walaalaheen loo soo dhiibay annagii ayaa markii isbahdilnay rag annaga naga dhasho muslimiina Soomaaliya ayaa pending bill meel u socdaan la garanayn ee qandaraasa 400 milyan oo 10% laga qaadanayo habeenadii hoteelada isugu imaanay qaybsana dawlad laguma wadi karo dalna laguma wadi karo raggan iga soo horeeyay anigoo waxba u diidayn waa rag walaalahay laakiin they need to step aside ninkii 20 sano fursad la siiyay wax bedeli waay ma maantu bedeli ilmihii iskuulkaaba ka ogolaanayna daa urug iskuulka standard 8 u tagtid oo dhahdid aaba ama adeer maanta aan qada ku keenay isniinta aad u geen weydid talaado qada u geen weyd arbaca qada u geen weyd ku keenay aad tiraa khamiistii ku dartid jimcihii ku dartid sabtigi been u sheeg axadda muu ka ogolaanaa qada u geeyni ma dhici karto ku dhiyaadar been way Soomaa dad baa waxay leeyihiin 20 sano ka hor xildhibaan wajeerka ahaayeen 20 sano ka hor wasiir ahaayeen haddaan diyaarna wajeer dhisayna bay leeyihiin macquul miya haye kuwii governor soo ahaana iyo kuwa hadda ku jira 3 governor ay la taagan bal waxaas dhageysta 3 governor it's time they retire waxaan ka dhigaynaa waxa la dhahaa emeritus governors dawladaha kale markuu ninka retire garoobo security baa la siiyaa iyo guri quruxsan waan siinaynaa annaga retirement ha galaan security baanu siinaynaa waan xishmaynaynaa waan xurmaynaynaa walaalayaashan weeye waxba kama sheegayno ragga gabanayaalka ahaa fursada la siiyey xafiiskayga hadday wax uga baahdaan anytime waa loo fulini laakiin hoggaanka iska wareejiyaan raggaas reewajeer waxba uma soo wadaan ayar retirement ha iska aadaan shaqada ani haligu dhaafo anigana teeda way saalan tahay 5 sano haddaan shaqada uga soo bixi waay aniga bay tuura ani waan ogolahay taas 5 sano haddii la siiyo oo wajeer wax ka bedeli waay bas fantashiru fil ardi waa kala tagayna aniga soo doonayeen doorasho dambe laakiin hal la siiyo fursad safartan aniga igu doorta midda kale ugu dambeyntii waxaan ku soo koobi dhalinyaroy kuraha waxaa la yidhi dhalinyarada iyo dumarka ugu badan soo maaha laakiin dawladdii waxba kuma haysatiin wiil advisor laga dhigo 200 kun mishaar la siimaa jiro maamooyin 200 kun dollar mishaar la siimaa jiro oo advisor laga dhigay maxaa raggaan u dooranaysaan marka maxaa gacmiina isugu dilaysaan reewajeer dhan baan la hadlaya xataa reer laga boqol kelimaha maxaad gacmiina isugu dilaysaan qabiil iyo qolo MCA iyo MP ku doorta waa idin fasaxay taas xataa sanadka ku doorta laakiin gabanaha ku dooranina war gabanaha xafiiskiisa hanti badan baa taalle waa kugu shaqaynaye ha ku dooranina qolo waxba yaadan been sheegin wax shaqaynaya maaha nin hoggaan soo qabtayna iga raalli ah oo dhaw walaalow safarta waxa ku mahay siyaad baan doorani dhalinyarada waxaana inna wax la qabsan kartiin hataa shaxaad iyo dhacdhacaad ka helaysiin hataa is afahmi kartiin hataa World Cup soccer tan screen weyn meel indigo World Cup hataa aad fiirsan kartaan Arsenal games aad fiirsan kartaan Man City aad fiirsan kartaan yeah right warnin aan hataa garanaynin inay jirto FA iyo UEFA Cup final maxaad ka doorani 2022 waa la joogaa 2022 ninaan fuliza garanaynin oo inay ka maartay ka cadday garanaynin maxaad u dooranaysaan war adduunki way isbedelay gabanayaalkii kala fiiriya Nderito Joho all of them were youthful sophisticated urbanite guys Wajeer should get a sophisticated young governor war qof wax adduunka fahamsan oo tiina la soo siiyay ka badan keeni doorta 10 bilyan ay tahay qolalka isku xiraan qaybsanayaan bay soo socdaan waxba ha dooranina raggan adduunka qof isku xiri karo hadda magaaladan magaceeda waxa la yiraahdaa lag boqol Soomaa
aniga waxaan deganaa meel maraykanka la yidhahdo city of 10,000 lakes tan waa city of 100 lakes lag boqol lag waa lake boqol waa boqol soo maaha waxaan rabaa inaan isku xiro la yidhahdo wax sister city wax laanu samaynin lag boqol sister city dhaa sister waxaa waaye in mataano laga dhigo maraykan magaalo ku taalo iyo lag boqol dadkoodii ay isbartaan sidii penpal oo kale isbartaan labada iskuulooyinkooda laisku xiro ay buugag u soo diraan buugag keenaan kombiyuutarra keenaan google tablets keenaan dad volunteer oo maraykan yimaadaan isbitaalkii volunteer ka sameeyaan sida ninka hortee hadla uu sheegay wuxuu yidhi ani meeshan caddaan baan keenay carab baan keenay dhakhtar Syrian oo pediatrics oncologist ayaan intaan geed hoostiisa lag boqol fariisiyaan gacanta bariis iyo hilib aan geel ku siiyey ya anigoo li dooranin baan in sameeyey udxiya baan cunto keenay 2 milyan ka badan xoolo la qalo ramadaankii baan afur keenay masaajidiyaan dhisay ceelal baan dhisay anigoo li dooranin baan sameeyey may fahmaysiin waqtigeed ii la heelin lahaadeen baa la gaaray hal jazaa'u lixsaan ila lixsaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan soo maa ilaahay muxuu yidhi ixsaan maxaan lagu gudaa oon ixsaan ahayn calaamadooyinkayga teebaabay beenaynaysaan hadda iyo dan waxaad hesheen maanta fursad gavana lag boqol ka yimi aad ku doorataan beesha ajuuraan beesha ogaadeen dogoodiya ha u kala harina arrintan ha u kala harina reer lag boqol ayaa ku faa'idi reer wajeer ayaa ku faa'idi tan ugu dambayso dardaarana meeshan waxaa jooga dad badan oo abkay midamaal waxaa aniga igu dhaheen odayaal khibrad leh oo beesha dogoodiya ee shir Nairobi ku shiray waxay dhaheen hadday cadaaladnimo jiri lahayd dogoodiya ninkay gogol ku soo qaadi lahaydeen waa iska caddahay siyaad cabdulaahi yaa la yidhaahaa